markana magaalada Boosaaso halkaas oo lagu wado in maanta lagu aaso laba nin oo ka tirsanaa guurtida Puntland oo ku dhintay dhaawacyo soo gaaray oo ka soo gaaray qaraxii shalay ka dhacay magaaladaasi. dadkii kale ee dhaawacmay qaraxyadaasi ku dhaawacmay ayaa waxaa lagu dabiibaya magaalada halka hal qof oo xaaladiisu ay lidato la sheegay in loo qaadi doono dhanka iyo magaalada Muqdisho. isla Boosaasana waxaa maanta ku kulmay wasiir Jamaal iyo wasiir Ciid oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo General Asad Cismaan halka dhawaanna magaaladaasi uu tagi doono madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. faafahinta wararkaasi waxaan gorowda khadka taleefanka ee Boosaaso ku weydiiyey wariye Maxamed Xasan Dhalo oo isagoo ku sugan xabaalaha bari ee magaaladaasi ii warramay. waxa uu marka hore ku hormarayaa xogta aaska. waxaan iminka ku sugnahay qabuuraha bariga magaalada Boosaaso ka xiga. waxaa ii muuqanaya dad badan oo halkan ka soo qayb galay ee aas loogu sameeyay magaalada Boosaaso. Allah u naxariistee Cabdi Ciise Maxamed oo nabadoon ahaa iyo Jiif Caaqil Yaasiin Cali Dhahar oo labaduba ku geeriyooday qarax shalay ka dhacay magaalada Boosaaso kadib markii dhaawacooda la keenay isbitaalada magaalada Boosaaso ay geeriyoodeen. waxaa ii muuqanaya ganacsato, aqoon-yahano, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boosaaso oo ka soo qayb galay aaskaasi ee maanta loogu sameeyo bariga magaalada Boosaaso. nabadoonnadaas iyo guutidaas qaraxa ku geeriyooday ka dhacay shalay magaalada Boosaaso. Cabdifataax waxaa kaloo jira dad ilaa tobaneeyo gaaraya oo qaraxaasi waxyeello ka soo gaartay kuwaasoo lagu dabiibayo laba cusbitaal oo ku yaala magaalada Boosaaso. halka la ii sheegay in mid ka mid a dadkii dhaawacu soo gaarayna lagu wado in Muqdisho maanta loo qaado oo isagana dhaawiciisu dhakhaatiirtu sheegeen inaan halkan waxba lagaga qaban karin. ragga halkan magaalada Boosaaso qaraxu uu ka soo gaaray oo qaarkood ay u dhinteen guurtida ahaa waxay halkan u yimaadeen doorasho lagu wado inay magaalada Boosaaso ka qabsoonto ee lagu dooranayo xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee deegaanada ka soo baxay 16 kursi ee magaaladan yaaliin. waxa ii xaqiijiyay mid ka mid ah guurtada deegaanka in ragga halkan ku dhaawacmay markii horeba ay Boosaaso u yimaadeen arrinta doorashada. maxamedow waxaa kaloo jirtay in ay kulamo lahaayeen wasiir Jamaal iyo wasiir Ciid oo dhanka federaal ka socday iyo General Asad Cismaan oo isna magaalada Boosaaso joogay. ma ognahay waxay ka wada hadleen? cagayrow sida inoo sheegeen ila xogagaal ah oo ka agdhow xubnahaasi waxaa maanta magaalada Boosaaso ku kulmay ama aad ka arkaysay taswiirada Facebook iyo la soo dhigay General Asad Cismaan Cabdullaahi iyo wasiir Ciid oo wasiirka beeraha Soomaaliya ah ayaa gurigiisa ugu tagay wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan. waxaana naloo sheegay inay ujeedkay ugu tageen uu ahaa inay uga tacsiiyaan waxyeeladii iyo geeridii soo gaartay qaar ka mid ah guurtida ay wasiir Jamaal isku deegaanka yihiin oo shalay ku waxyeeloobay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso qaarkoodna dhaawacii u geeriyoodeen. isla Boosaaso waxaa maanta kusoo wajahnaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. maxaan warar ka haynaa safarka madaxweynaha? madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo shalay ka soo kicitay magaalada Garowe waxa uu xalay ku hoyday magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar halkaas oo uu kulamo kula yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada isaga oo mashaariic ka dhagax dhigay kuwana xariga ka jiray intii uu jidkaas ku soo jiray. sidoo kale madaxweynuhu maanta sida qorshuhu yahay ee ii sheegeen ila xogagaal ah madaxweynuhu waxa uu ku nasan doonaa magaalada Waaciye waxaana lagu wadaa in caawa uu ku hoydo magaalada Carmo ee gobolka Bari oo uu iyadana uu kulamo la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada inta madaxweynuhu jidka ku soo jiro oo safarka kan uu ku soo jiro. bari ayaa lagu wadaa inuu Boosaaso soo galo sida qorshuhu yahay. waxay xilligaas ku soo beegmaysaa safarkan madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni markii ugu horeysay uu safar ku yimaado tan iyo intii Boosaaso dagaalku ka dhacay dhex maray ciidamada Puntland iyo BSF. Maxamed Xasan Dhalo ayuu kaasi faafahinta warkaasina siinayay isagoo jooga magaalada Boosaaso. markana sidaad warka